Asalaamu calaykum akhaarta ku soo dhawaada channelka Som Universe. Marka hore subscribe inoo saar muuqaalka la garay si uu u gaaro dad badan oo wanaagsan adigoo kale ah. Maanta waxaan rabaa inaan muuqaalkan kaga hadlo inaad iska joojiso isticmaalka taleefankaaga waqtiyadan. Marka ugu horeyso taleefankaaga markuu ku dhaco overheating ama markuu kululaado, taasi waxay sabab u yeelan kartaa gudaha taleefankaaga processorka inuu kululaado. Processorkaas markuu kululaadana waxaa laga yaabaa inuu batteriga performance-giisa hoos u dhac ku yimaado taleefankaagana waxyeello u geysto. Qodobka xiga, jooji isticmaalka taleefankaaga marka aad wax akhrinaysid. Badanaa oo taleefanka gacanteena ayuu ku jiraa, waxyaabaha aan waqtiga ugu badan ku bixin waa asaga. Marka waxaa dhici karta inaad diiradda saarto taleefankaas oo uu ka mashquuliyo wixii aad akhrin lahayd ama aad rabtay inaad xifdiso. waayo qofka bini'aadanka ah iskuma keeni karo laba waxyaabood inuu hal mar fuliyo. Hal maskax ayuu leeyahay. Qodobka xiga, jooji isticmaalka taleefankaaga marka aad kulan leedahay meeting. waayo haddii aad isticmaasho taleefankaaga markii uu socdo kulankaas meetingka, laga yaab inaadan la socon waxyaabaha laga hadlayo, aad ka mashquushid oo aad taleefankaaga markaas focus ka saarto. marka dadkaasna waxaa laga yaabaa inay isdhahaan qofkan idinma qiimeynayo, shirka uu ka mashquulsan yahay. Qodobka xiga, taleefankaaga ku isticmaalin jaajarka. waayo taleefankaaga intuu jaajareysmayo waxyaabo badanaa dhici kara oo adigana aad si isticmaasho, sida taleefanka inuu kululaado. sidaan hore usoo sheegayba, processorka kululaanayo wuu dhalaali karaa, laakiin xaaladaas ma ahan mid badanaa dhacdo. wuxuu kaloo dhibaato u geysan karaa batteriga taleefanka. laga yaabo batterigaas muddadii uu ku buuxsami jiray inuusan ku buuxsan. marka taleefanka isticmaalkiisa badanaa waxaa jira waqtiyo aan la isticmaali karin. hadda qaar ayaan soo sheegay waxaa jira waqtiyo badan oo aanan soo koobi karin. marka aan halkaas ku soo koobaya. saxabta waa aad u mahadsantihiin daawashadiina. marka subscribe iyo like ay naga iloobina. bilaay tawfiiq.